daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ku cusubtahay subscribe saara gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey ururka al-shabaab oo duqeyn xooggan loo geystay isla markaasina la sheegay in halkaasi lagu dilay saraakiil sarsare oo culus halkaasina khasaare xooggan oo kasoo gaaray ururka Mareykanka isla markaasina lagu magacaabo Africom ayaa sheegay duqeyntii ay u geysteen isla markaasina duleedka Bu'aale ay ku dileen rag saraakiil sarsare ururka al-shabaab ah Africom oo sheegtay inay duqeyn ku dishay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab isla markaasina dadka shacabka halkaasi joogay waxba soo gaarin taliska ciidanka Mareykanka ee Africom ayaa faahfaahin ka bixiyay duqeyn diyaaradeed oo shalay galab ka dhacday gobolka Jubbada Dhexe isla markaasina la beegsadeen saraakiil sarsare ee halkaasi marayay duqeynta oo lala beegsaday deegaanka lagu magacaabo Dujuma oo 6 kiiloomitir u jirta degmada Bu'aale ayaa waxaa fuliyay ciidamada Mareykanka oo gaashanaya ciidamada sirdoonka Soomaaliya iyo commandoska isla markaasina ninkaasi la daba joogay in muddo ah halkaasi markii uu ka soo baxayna gaarigiisa dhulka lagu aasay bahal gantaal ah lagu dhuftay sidoo kale Africom ayaa shaacisan in weerarkaasi dhinaca cirka ah lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab walow aysan magaciisa rasmiga ay sheegin maadaama ay dhaheen ninkaasi waa sargaal sare isla markaasina aad loogu yaqaano halkaasi aadna loo daba joogay oo tuurbiinka noo saarnaa war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeyntaasi aysan wax khasaare ah ka dhalanin gaarigii dadka rayidka ah isla markaasina dadka rayidka waxba soo ma gaarin kaliya gaarigii uu saarnay ayaa gantaalka la haleelay isla markaasina gantaalka xoogga oo qabay dhulka ayuu ku aasay gabi ahaanba gaarigii iyo dadkii saarnaabo waxaa halkaasi la filayaa in sargaalkaas iyo saraakiishii kale la socotay gabi ahaanba halkaasi ay gubteen dowladda dalka Mareykanka ayaa sanadka 2019 xoojisay howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee uu ka fuliyo koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya isla markaasina uu adeegsado droneskan cidina wadin isla markaasina gantaalada xambaarsan meeshii loogu talagalayna si toos ah aan meernaba meel kale u habaabin ama u leexanin gaarigii loogu talagalayna si toos ah dhulka u aasayo muddooyinkii u dambeysay ayaa waxaa sidoo kale ciidamada huwanta ay ballaariyeen dhaqdhaqaaqyada military ee ka socda gobolka Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya halkaasi oo ay weli ku xoogan yihiin dagaalyahanada hubeysan oo ka tirsan al-shabaab isla markaasina bartilmaameedka Mareykanka ugu waaweyn ay ka mid tahay magaalooyinkaasi ama qaybaha hoose ee Jubbooyinka hase ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo qaadan doonaa weli maysan faahfaahin ka bixin ururka al-shabaab laakiinse ururka al-shabaab ayaa lagu yaqaanaa markii duqeymo saas loo geeyo wax war inay ka soo saarin hase ahaatee haddii ayaga wax qarax geysadaan isla markii war-saxaafadeed ka soo saaro dhinaca kale xildhibaano dacwad ka ah Axmed Madoobe oo soo gaaray magaalada Muqdisho isla markaasina dacwad xooggan ka gudbiyay gabi ahaanba maamulka Jubbaland xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in xildhibaano ka tirsan baarlamaankii hore ee maamulka Jubbaland ay maalmihii la soo dhaafay soo gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xildhibaanada oo tiradooda ay gaarayso ilaa 40 mudane ayaa dacwo ka ah madaxweynaha maamulka Axmed Madoobe isla markaasina aysan aqoonsanin dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo xubnahan ayaa ka cabanaya madaxweyne Axmed Madoobe uusan muddo ku siman 35 bilood oo 3 sano aysan ka helin xuquuqdii ay ku lahaayeen maamulkaasi sida mushaarkoodii iyo xuquuqdii kale ee xildhibaan ku lahaa ayaa lagu yiri asaate dacwad xooggan ayay ka soo gudbiyeen isla markaasina waxay doonayaan maxkamadda sare ee dalka inay ka sii dacweeyaan xildhibaanadaasi ayaa shalay magaalada Muqdisho kula kulmay qaar ka mid ah senatarada laga soo doortay deegaanada maamulka Jubbaland kuwaas oo ay ku gudbiyeen warqado ay uga dacwoonayaan Axmed Madoobe isla markaasina ay doonayaan ilaa maxkamadda ay la tiigsadaan qaar ka mid ah xildhibaanadaasi ayaa warbaahinta u sheegay in dacwadooda ay u gudbin doonaan cid kasta oo wax ka qaban karta sida xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya markii laga soo tago mushaar la'aanta ay ka tirsanayaan maamulka Axmed Madoobe waxay sheegeen inay jirto tacadiyo kale oo qayb ka ah dacwadooda kuwaas oo ay ku tirsanayaan maamulka ay ka tirsanaa jireen ee madaxweyne Axmed Madoobe hase ahaatee dacwadaasi ayaa la filayaa inay dhammaanba u gudbiyaan cid kasta oo ku shaqo leh maadaama arrintooda ay tahay mid xasaasi ah dhinaca kale isla Kismaayo haddii aan ku jirno ee Jubbaland
James Swam iyo Axmed Madoobe oo kulan gaar ah ku leh magaalada Kismaayo kadib maanta markii uu gaaray ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. James Swam oo gaaray magaalada Kismaayo ayaa haatan kulan xasaasi ah la leh madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, isla markaasina horeyna ay u shaaciyeen inaysan aqoonsaneyn qaramada midoobay beesha caalamka dhammaan maadaama la yiri doorashadaasi waa uu ku shubayay. kulanka oo ah mid albaabada u xiran yahay ayaa waxa wararku ay sheegayaan in diiradda lagu saari doono xalinta khilaafka xooggan ee u dhexeeya dowladda federaalk Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo isla markaasi hogaamiyo sida Axmed Madoobe. ujeedada safarka James Swam ayaa ah sidii la isugu soo dhaweyn lahaa labada dhinac loona dhameyn lahaa khilaafkii ka dhashay doorashadii maamulkaasi, isla markaasi dowladda federaalk Soomaaliya ay qaadacday sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha. ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay iyadoona inta badan la xiray ciidamadana lasoo dhoobay wadooyinka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, halkaasina oo shirka ka socoya isla markaasina wufuudan qaramada midoobay aad ku culusna ay joogaan. lama oga natiijada ka soo bixi doonta kulankani oo ay ku soo aadaysa iyadoo uu shalay madaxweynaha Jubbaland oo dib ugu soo laabtay gudaha magaalada kadib markii uu ka soo laabtay safar qaatay muddo hal toddobaad ah oo uu ku joogay dalka Kenya, isla markaasina oo la kulmay madax sare mucaarad dalka Kenya dhammaan wixiiba ka soo horjeeda dowladda Farmaajo halkaas kulan ku soo qaatay. xiisada dowladda iyo Jubbaland ayaa sii xoogaysatay iyadoona xubno ka tirsan maamulka gobolka Gede oo ku biiray dowladda ay ku sugan yihiin Muqdisho, kuwaas oo ka wada kulamo siyaasadeed isla markaasina looga soo horjeedo Axmed Madoobe sidii halkaasi loogu saari lahaa. xiisadaasi ayaa in muddo ah soo jiitamaysan lama oga halka ay ku sii biyo shuban doonto maadaama khilaafkoodu aad u xoogan yahay. Axmed Madoobe ayaa ah nin aan u tanaasuleynin shacabkiisa maadaama cunaqabateen cir iyo dhulba la saaran yahay, hase ahaatee waxa uu doonayaa 5 sano ama inta ay Farmaajo uu meesha ka dhacayo oo halkaasi kusii dheganaado. dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay doorashada maamulka Galmudug ayaa warar dheeraad ka soo baxayaan. maanta ayaa loo ballansanay in madaxweyne la doorto, hase ahaatee madaxweyne iska dhaafe xataa baarlamaanka lama soo xulin. waxaa weli magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada Galmudug, gaar ahaan xareynta odayaasha soo xulay xubnaha cusub ee baarlamaanka cusub ee maamulkaasi. wararka ayaa sheegaya in guddiga farsamada ee maamulka dhisidda Galmudug uu wado dadaalo xoogan oo lagu dardargelinayo doorashada kadib markii ay heshiis dhab ah la gaaray khilaafkii xooganaa ee u dhexeeya dowladda iyo ahlu sunna wal jamaaca, isla markaasina muddo dhowr bilood soo jiitamayay dib weynna u dhigay maamulkaasi. doorashada ayaa marar badan dib u dhacday, waxaana maanta oo ay ku beegan tahay 17 December la filayay in la qabto doorashada madaxweynaha sida ku cad jadwalkii ugu dambeeyay ee guddiga farsamada, inkastoo uu isbedel ku yimid jadwalkaasi. dib u dhac kasta oo ku yimaada howlaha Galmudug ayaa waxa uu sii fogaanayaa dadaalada loogu jiro dhismaha maamulka loo wada dhan yahay, isla markaasina maamul daacad halkaasi oo ka dhasho. dhinaca kale senator Ilyas Cali Xasan oo ka mid ah hoggaanka xisbiga Himilo Qaran oo ka hadlay dib u dhaca ayaa sheegay in tani ay muujinayso sida ay dowladda Soomaaliya muddo 8 bilood ah doorasho uga sameyn la'dahay maamulka Galmudug, isla markaasina ay ku fashilantay gabi ahaanba. sidoo kale wuxuu su'aal ka keenay sida ay dowladdu ugu guuleysan karto inay qabato doorasho qof iyo cod ah 2020 maadaama ay hadda ka harsan tahay 10 bilood oo keliya. maanta 17 December waxaa ku beegan tahay maalintii ay dowladda sheegtay in ay madaxweyne loo dooran doono Galmudug State, sida weli baarlamaanka lama sameynin. haddaba su'aasha meesha taalo waxay tahay hadiiba ay dowladda 8 bilood oo ay Galmudug doorasho ka sameyn la'dahay 10 bilood oo ka hartay doorashada guud ee dalka 2020 qof iyo cod ah ugu qabanaysa dowladda federaalk Soomaaliya, ayuu yiri Ilyas Cali Xasan oo ka tirsan aqalka sare. Galmudug oo waqti badan kaga baxay dowladda dhexe ayaa hadda xaaladeeda waxa ay tahay mid ku jirta marxaladda kala guurka ah, waxaana socdo qorshihii ugu dambeeyay ee doorashada xildhibaanada baarlamaanka iyo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi lagu dooranayay. sidoo kale dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa rajo weyn ka qabta inta aan la gaarin sanadka ilaa Maars dhinac inta ka horeyso in lagu kala baxo ama sanadka cusub bisha ugu horeysa in lagu kala baxo maamulkaasi, maadaama hami weyn uu qabo soo laabashadiisa doorashada 2020
maadaama galmudug halkaasi ay ka soo baxayaan xildhibaano aad u fara badan islamarkaasina la doonayo inuu ka helo maamul asiga taageersan islamarkaasina ay ka soo baxaan xildhibaano asiga taageersan si haddii ay noqoto in baarlamaanka madaxweyne u codeeyo oo halkaasi oo ka helo xildhibaano aad u daabacsan qarashna kaga bixin halkaasi mar kale ay kusoo doortaan laakiin haddii aysan arrintaasi oo samaynin waxaa macquul ah in farmaajo naftigiisa ay soo wada baxaan xildhibaano mucaarad ku ah islamarkaasina ay u codeeyaan madaxweyne cusub halkaasi oo daaqada kaga baxo madaxweyne farmaajo halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan nala joog oo ka mid noqo calansida member